laakiin dawlad haddaysan jirin waxaa ogaataa ardaduna ma jireen laakiin waddankan dawlad lahayn jirin ardadu taa sababteeda ma dhihi karo waay arrinka imtixaanka sacaadatu wasiir reer muqdisho waxay isweydiinayaan aniga ma raba inaan wax kuu qariyo ma wasiir goodaxa raba maadaama uu ku siman yahay inuu mar kale wasiir soo noqdo oo madaxweynaha jamhuuriyadda ku raali gelinaya in gobolada qaar ay naqdaan waa warka suuqa u badan oo waalidiinta iyo ardadu iyo waxna isla dhex yaacaya mise daacad iyo dar alla in ka tahayo waxba aadan ka ogeyn waxa ka jira wasaaradda gudaheeda waxa dhacay ma qaadan karno waa nagu adkaatay bulshadu waa u jawaabi weynay warkuna naqan maayo waa qaldantihiin iyo iskuulaadkiina tabar daran iyo waa la ogyahay in iskuulaadkan ay tabar darnaayeen dawladduna waa ku ogeyn annaguna waa isku ogeyn wax la isku ogyahana ceeb ma keenaan waxaasu 20 sano oo burbura oo dhiig joojina dalkan iyo dadkan lagu soo dhaqaay waxaan waxaad leeyahay ardayaan kordhinayna oo waxbarashadii la'aanta yareena hadda waxbarasho la'aantii soo qayb ka noqon maysan ma qayb ka noqonayso fiiri waxa weeye masalooyin iska sahlana jiro oo mataqaana iska fiican in dadka يعني لو كعيو وحلا شيء marka ninkaas warkiisa waa kicina maahan waxaad leedahay wax sax oo waa aniga hadda marba inaan ninka saaxiibkay aan warkiisa naqdiyo fikirkiisu ka hadlay aan keegan ka ma xaalad dabo kala la fikir ma waa wax aniga haysto ku yiri oo ilmahiga xaalad haysto waxa asiga haysto waxa asiga haysto hadda waa aragti wuxuu gurigiisu nooga waran dib sax oo laakiin inay sax tahay inay run tahay adigu ma sheegi kartid ma beenaysanay aniga ma beenayn karo waa asaan hor fadhiya anna ma rumayn karo inuu sax yar rusheega فيري maaha inaan ku kor buuqno ma waqta inaan mar rumayn karto warkiisa intaasan ka qaaday adiguna ma rumayn kartid anigu nin weyn oo qaangaar oo islaam halkaas fadhiya been waa ma dhigi karo warkiisa anigana waxaan rumayn karin soddon iyo 3,000 oo qof oo midkiiba intaasoo imtixaan lagu dhuftay 180 iyo muxuu ahaa 4 qof 40 berisay ku saxeen waa wax qofka mutacalimka oo calculate garan kara inta saac oo kaas ku waa suuragal ah leedahay wayna dhacday ma waa dhacdayba waa huba aniga waa dhacday waa wax la huba taas marka laakiin haddii su'aashu ay u dhacayso miya waxba iska soo xariiqdeeno ma sameeyay haddii waxa u dhacayso waxaan rabaa inaan kalsooni ku geliyo inay dhacday ardada marti qaadnay saad la socotaan kulligii waa la socotay urur ardaa jira lagu yiri waxaa yiri 5 qof soo dirsada kor istaago sida wax la saxay arko bal horta processka la maraayo kor istaago hubiyo in horta wax laga hadlayo la saxayo waxaad imtixaanteen dad aydan idinku waxba soo barin badakood waxaad imtixaan ka qaadeen dad 75% idinku aydan waxba barin waqti iyo hantiina idinkaga lumin dadkii wax soo barayna wax talo aad kala wadaagteen aan jirin dadkii wax soo barayna wax talo aad kala wadaagteen aan jirin waxaad imtixaanka uga soo diyaarsan 4 book ilaa form 1 ilaa form 4 adiga oo ka xogla adiga wasiir Cabdilaahi ahaan iyadoo imtixaanka lagu soo dhijinayo wadanku macaamilu laha yaqaanay dugsi sare in la isku imtixaamo hadigan xog helin wax lagu imtixaamaya inuu yahay 4 book ilaa form 1 adiga wasiir Cabdilaahi hadii imtixaanadii lagu dajiyo babaasi lahayd waa su'aasha koobaad su'aasha labaad ardayda gobolada ku galay imtixaanka waxaan ognahay inay ku galeen imtixaanka iskoolkii wax ku dhiganayeen waxaan ognahay kuwa ilaalinaya inay yihiin macallimiintii iyaga wax u dhigayay waxaan ognahay maamulkii iskooladaas inay saameyn ku lahaayeen waxaan ognahay sida macallinkaasi sheegay ardayga Muqdisho ku galay imtixaanka in si fiican oo sidii imtixaanka loo ilaalin jiray loo ilaaliyay waxaad nagu qancinaysaa labada arday inay fursad wada heleen oo fursad ahaan sinaayeen fursad siman wada heleen way aad oo maasan su'aasha saddexaad waa soo koobaya raaliga su'aasha saddexaad manhajka sidin ognahayba ilaa intaan xornimada qaadanay waxaanu dejinaynay manaahij
kala dambaysa oo keenan hadeerta ugu dambeeyo mid walbana duruuf gaara iyo wax u baahan in la tixgeliyo ayaa ku xeernaa waana sababta inay u kalifaysa mar walba inaynu manhaj cusub dejinno laakiin dawladda haddaysan jirin waxaa ogaataa ardaduna ma jireen laakiin waddankan dawlad lahayn jirin ardadu taasabteeda ma dhigi karo aniga dataydan rabaa inaan iraahdo fiiri hataa marka laakiin waa inaan kaa celinaa haddii sax ay maya marka jiro dawladda canshuur ma qaado dawladda Soomaaliyeed oo aragtay siga haysto waxa siga haysto hadda waa aragtay gurigiisu nooga waran laakiin inay sax tahay inay run tahay adigu ma sheegi kartid ma beenaysan aniga ma beenayn karo waa asaan hor fadhiya anama rumayn karo inuu sax yahay run sheega waxa inaan ku kor buuqno waqta inaan kor rumayn karto warkiisa intaasan ka qaaday adiguna ma rumayn kartid adiguna ma rumayn anigu nin weyn oo qaangaar oo islaam halkaas fadhiya been waa ma dhigi karo warkiisa anigana waxaan rumayn karin 13